Ustaad Cabdicasiisna waxaan weydiinayaa shan qodob buu sheegay haddii Ilaahay idmo haddii uu ku soo baxo maayirka magaalada in shan qodob insha Allah wax ka qabanayo. Qodobka koowaad oo ahaa nadaafadda magaalada, musuqmaasuqa, qodobka saddexaad oo tacliinta asaasiga ah, weliba keejiga iyo galaasoonka inuu furi ka dhigay oo fikrad aad u wanaagsan. Sidoo kale qodobka deris wanaagga ama deriska in laga warhayo. Qodobka u dambeeya noqonaysa dhalinyarada in la caawiyo. Ka su'aasheedu waxay noqonaysaa Ustaad qodobo aad u muhiim aad sheegtay laakiin waxaa jira waxaanu ka warhaynaa wadamada horumaray inta badan waxbarashadan inaanay wax badan soo kordhin maadaama xirfadihi ay meeshii ka maqan yihiin. Ka halkaa xirfadaha laftigeeda maxaa kuu qorshaysan ma inaad dee waxa weeyaan aad xagga dambe aad qorshahay kaga jirtaa inooguma darin shantii qodob ee ahaa haddii aad ku soo baxdo maayirka magaalada inaad qaybo xirfadaha aad ku soo kordhinayso insha Allah markaas labadaas su'aalood ayaan jecelahay inaan weydiiyo Ustaad. walow ilaa 2022 aan daraasaynay wax badan intay dawladnimadeeda jirtay ma jiro primary school ah oo la dhisay Jamhuuriyadda Soomaaliland oo waliba gobolka Togdheer inta la dhisay waxa dhistay family yahay su'aasha labaad waste management ida maxaa qorshe taada waayo musuqmaasuqa in la dagaalamo cashuur bixiyaha in taqaadaya magaciisa ma qoro odayba meesha teenay maanta haddii aan musuqmaasuq 2 milyan la qabto oo la eriyo waxa hore islaantiisa la soo bedelo waxaan leeyahay horta farqoda fool ma dhaqdo musharax Cabdicasiis soo qura haddii ilaahay dawlad weyn oo khayr leh tusoo beedin xaar ba dawlad usirta dawladaha hoose ma soo saaray talfadhiyo Cabdicasiis baa la leejabinaya halkaan maxaa haddii loo ololeeyo si aad u aragtaa maayir iyo maayir tuxdeen in la doorto qura istiikarada waxa kugu qoran tira hal sano ku soo celinaysa sumcaddii gobolka Togdheer waa maxay waxa koowaad ee priority-ga siinaysa isla sanadkaas su'aasha koowaad su'aasha labaad waxa weeye ka waran Cabdicasiis haddii kugu soo beegmaan gole aan sidaa daacad ahayn salaana kale gole doonayay inay wax musuqmaasuqaan kala doonayay inay lacagtii ay isku soo sharxin dib u cishtaan waxa kaaga qorshaysan su'aashayda labaad taas weeye waa maasantihiin runtii su'aalaha ay weydiiseen dhammaantiin waa wax aan tabayno oo horumarka aan higsanayno haddii laga jawaabi lahaa su'aalaha iyo kuwa badan waa la gaari lahaa waxaan aad uga xumahay mugdi badan baa iyadoo aan cabashadaas oo dhan ay jirta haddana mugdi badan oo kale ayaa sii muuqda oo waxa weeyaan xildhibaano badan rag badan oo wanaagsan oo boqolaal oo wanaagsan way jiraan laakiinse inta badan qofkani wuxuu soo arkayaa meesha inuu isagu iska leeyahay xataa in su'aalaha weydiisaan waxba uguma fadhido macna uguma fadhido waxay ka soo dhex baxaysaa adigu haddaad ajenda ku doodayso aad soo bandhigayso waad leedahay magaaladii baan haddaan soo baxo wax u qabanaya kuwa kaa soo garab bixi doona haddii kuwa kula soo baxaa ay ku heshiiyaan sidee baad uga gaashaaman kartaa iminka kasi gaashaamanana haddaad cod aan bulshada burco ku mateli karno reer burco haddaa igu codaysaan oo ay igu codaysaan sidii ina mooge oo ay igu codaysaan sidii ina barkhad batuun igu codaysaan marka waan hor istaagi karnaa burcana waxbaan ka bedeli karnaa burco maayir lama dooran karo laakiinse ninka codka bulshada ku fadhiya waxba ka bedeli karaa taas way ajendaheenu ma gaadhsiin karna bay ila tahay malaha halkii barkhad batuune laakiin aan ku soo dhowaano si aan dadka wax aan uga bedeli karayno cidna hor istaagi kartaa ma jirto taasaan ku badbaadi karnaa mid kale kuma badbaadi karayno ila reality waa laga hadlaa soo maa tacliinta asaasiga inaan bilaash ka dhigaa ay qorshaysan sanadka koowaad waxay qorshaysan magaalada burco afarteeda daamood inaan ka sameeyo iskuulada KG-ga iyo ama kalaasida 1ka iyo KG-yada inaan ka sameeyo afar iskuul oo waaweyn oo lagu soo hagaago kalaaska sanadkaas inuu bilaash yahay taasoo la korayso hadhatooni marka sanadka koowaad KG iyo class 1 oo bilaash inaan afarta koonay magaalada inaan ka sameeyo ayay qorshaysan sanadka labaad iyo sanadka saddexaadna inaan gaarsiino ilaa iyo class 4 inaan soo gaarsiin karo dadka aan dad baa waxay cunaan aan haysanin magaaladeena dad baa waxay cunaan aan haysanin iska daa inay wax bartaan qofku markuu dee wax cuno naftiisa uu socon karayo qof aan socon karayn oo waxba cuni karayn muxuu baranaya marka dadka dan yarta ah in loo sameeyo dugsiyo bilaash dugsiyo la dhisayo ma aha مثلا
iskuul Sheekh Ibrahim waxaa laga yaabaa 5 class ama 7 class oo sanadka class 1 inuu qaadanayo classkaas haddaan nahay anagu dowladda hoose annagaa bixinayna wixii qarash ku baxaya inta ardayga gelaysana annaga mas'uulka ah afartaada class kalena waxa weeyaan wad qoranaysa iskuul hebel kale oo isaguna ku yaala koonaha magaalada mesela koonfurta magaalada oo kale oo iskuul dowladeeda class hebel classkaas annagaa qaabileen majmuuc afarta koonee magaalada waxay qorshaysan sanadka koobaad in arday kasta oo aan iskuul iska bixin karaynin inuu heli karo iskuul uu gaari karo oo soo gala class 1 sanadka labaadna saas oo kale saddexaad iyo afraad loogu daro ayay qorshaysan insha Allah taala lacagteeda halka laga keenayo inta musuqmaasuqu naga baxayso oo kaliya hadii la ilaaliyo dugsiyadeen hoose oo dhan bilaash weyn noqon karaan magaalada Burco ee dawladda anu dugsi level ka hadli maayo oo $20 laga qaadayo de iskuul $50 qaadan uu ka hadli maayo anu waxaan ka hadlayaa waxbarashada asaasiga ee dawladda ee tacliinta ma waxbarasho kale iyadoo de qofku isaga option ka iska leh taasiyadu waxay noqotay level bay noqotay aniga qorshaha dhalinyarta iga yaala xafiiska ninka odayga uu ka warhaya iyo hablahan iminka ka hadlay xafiiska arrimaha bulshada inaan xoojiyo ayaan ii qorshaysan oo dhalinyarta ula shaqeeyo waxa kale oo ii qorshaysan in magaalada cid kastoo shaqo qaadanaysa dowladda hoose ay la shaqayso oo ay ka baxdo meesha ay ka baxdo oday keenso dowladda hoose inay ku matasho insha Allah taala xafiiska arrimaha bulshadu inuu ku matalo oo waxa weeyaan oday ku garanaya iyo cid ku garanaysa raadsadii ay ka baxdo meesha ayaan isku daynaa oo arrimaha bulshada xafiiska arrimaha bulshada iyo shirkadaha wax shaqaalaysiiyay cid kasta wax shaqaalaysiisa ay wada shaqeeyaan oo ninka muwaadinka haddii uu ka soo baxo shuruudihii shaqada lagu qaadanayay dee toos lagu qaato wax kale lagu xidhaanay jirin oo xafiiska arrimaha bulshada uu doodo dadkii ayaa qorshaysan waana tal cadaalad lagu heli karayo kii wax garanayana uu shaqo ku heli karo su'aasha ah nadaafadda way ku wada ololeeyeen dhammaan marashaxiintii oo dhan maxaad kaga duwan tahay horta waxaan kaga duwanaan doonaa insha Allah meel wasakho dambe lama arki doono waxaan sameyn doonaa magaalada Burco inaan u sameeyo meel in qofka wax magaalada wasakhdeeda tuuraya inuu noqdo mid tuka balcada waxa inoo qorshaysan magaaladeenu inay noqoto magaalo public meesha public ay meesha private isku nadiif ay haadaan waxay qorshaysan in mustadaam noqoto wixii ay noqoto de wax khamiis la soo kaco istaxsano la yiraahdo waxbaan ururina khamiista labaadna la iska caajiso de waxba taas ma noqonayso xama tariso inay wixii mustadaam noqoto ay sii jirto ayay qorshaysan